هذول نلقى قدرنا لا معاني أهلا نلقى إيد مقد ماشي مقد قلبه موجودة إيدك وجنبنا ردرساه waxa uu iska hubinayaa halkan oo uu doonayo inuu dhac ka geysto in markaasi uu hubiyo in dadku ay mashquulsan yihiin si qorshahan xatooyo uu u geysto laakiin falka uu sameynayo ayaa mid ka yaabin doona hore waxaad u maqli jirteen tuugo xilliyada habeenkii ah guryaha dadka Soomaaliyeed u dhaca laakiin arintaas oo muuqaal ah ayaan maanta idin hayaa waxaana dabcan muuqaalkan oo ay nala soo wadaageen dadkii markaasi guriga ay ku noolaayeen falkan uu ka dhacay uu cadeynaya heerka markaasi shaqo la'aan iyo duruufta maalmihii ugu dambeysay laga soo sheegay magaalada Muqdisho gaar ahaanna shiid baan oo magaalada ka jiray muuqaalkan oo dabcan ka turjumaya nin dhalinyaro u muuqda oo markaasi isagu dharka xadaya mid kamid ah guryaha ku yaala xaafadaha magaalada Muqdisho ayay nala soo wadaageen qoyskii arintan markaasi gurigooda ay ka dhacday iyadoo muuqaalkan ay duubtay kaamirooyinka qarsoon ee hadda inta badan laga hirgeliyay guryaha ku yaala magaalada Muqdisho dabcan kaamirooyinkan markii la xirayay waxa inta badan dadku ay markaasi muujinayeen cabsi iyadoo xilligaas laga cabsi qabay al-shabaab laakiin faa'iidadeeda waxa ay cadeysay ama muujisay markii ninkan iyo kuwa lamid ah kaamirooyinkan ay duubeen kadibna howlgalladii laamaha amnigu ay sameeyeen qaarkood lagu soo qabtay muuqaalkan ayaan idinkaga dhex baxayaa oo dabcan muujinaya duruufta shaqo ee markaasi magaalada iyo shiidka maalmihii ugu dambeeyay la soo sheegay sida muuqata ninkan waxa uu isku dayayaa marka hore in uu iska hubiyo dadka gurigaas ku nool laakiin isla markiiba waxa uu arkay in goobtan aanay cidi joogin waxaana uu ka faa'iideystay dhar ilanka hore ee gurigan dabcan ku warnaa waana muuqataa oo wajigiisa inkastoo kaamiradu aanay si wacan u duubin haddana waxaa muuqanaysa ama la aqoonsan karaa ninkan iyadoo la sheegayo ninkan inuu ka mid ahaa dadka xaafadan oo magaalada Muqdisho kamida ku noolaa inkastoo markii dambe baaritaanadii laamaha amnigu ay sameeyeen ilaa iyo hadda aan lagu guuleysan in gacanta lagu soo dhigo ninkan oo ah dabcan nin dhalinyaro ah oo dabcan muujinaya duruufta shaqo iyo sidaas oo kale shiidka ba'an ee maalmihii ugu dambeeyay laga soo sheegay magaalada Muqdisho جتكو مرة واي سك وأركينا وكذا ماشي كنا شوفك مكوي شعرته هذول نلقى قدرنا لا معاني أهلا نلقى إيد مقد ماشي مقد قلبه موجودة إيدك وجنبنا ردرساه ما عدينت كثير أو كفلنا بنن زون كان أنا من كان مكو أركين نن عد دوبن يا نن عد أو الصلحان يلا يا سؤال لا بنا فيري وجبنا ماذا في تاجا موجودة بلا يكو أرك سؤال لا بنا وراني كيسنا حلي سكر ساعد ما كسعوا حلي سكر 6 ساعة يحوى يسود 9 دقيقة شهيد